dhacdadani waxay dhacday waa xilli subax hore laba nin oo dhalinyaro oo yuhuud ayaa oo israa'iiliyiin ah waxay furteen supermarketkooda labada nimanka ay supermarketka u furteen waa shaki waxay arkay rag dhalinyaro oo hooyo Falastiiniin ah soo ordaya way yaaban yihiin ninkan fanaanada madow taagan yahay kan fanaanada kuusan hadda uu jeedaa warka ku soo cusub amsani socon laakiin raggan huwaysan saaid ay u soo wajaheen waana rag aad u tiro badan waxay wataan hub waxayna kor u rideen rasaas saaid u tiro badan raggan waxay isku dayayaan in ay baxaan ay ku cararaan qaybta gadaale waa kuwa ayaga oo saaid u ordaya mid ka mid ah albaabka ayuu furaya waa furmooy marka dambe ya Allah uu furmayaa raggii huwaysan ayagana meeshii ay xabad ku rideen si ay meesha ragga u geliyaan cabsi inta aysan meesha soo galin raggii waxay ka baxeen bagaal waxay ku dhunteen qaybta gadaale waa kuwa raggii huwaysan ayagoo hubkii wata albaabka ayaa iska soo furay inta albaabka soo furay raggan waa rag aad u feejigan oo hadana oo tiro badan waxay eegayaan dhinacyada supermarketka waa kan mid ka mid ah supermarketka qaybta soo galay receptionka wuxuu eegayaa labada nin dhalinyarta kan hadda ordaya oo soo raacayaan waxay eegayaan gadaal ragga meesha ka baxeen dilaan bay rabaan ilaahay qadartiisa calafkeeda ayaan dhamaan albaabkii gadaal ay ka baxayaan galayaan laad buu ku furayaa waa kan wuxuu eegayaa kan galaya ka weynaya oo kan soo telefoon ayuu qaatay oo soo ordayaan hadii hore u socon lahaa rag arki laakiin tooda ayaan barta ku keedaan dhamaan handan raggan waxay ahaayeen rag ciidan oo huwaysan oo Falastiiniin ah waxa ay dhaceen bakhato supermarketkan soo caroortiya waxa ay qaadanayaan dhamaan waxa ay cunaha ku tawayeen haday noqoto buskud haday noqoto cabitaan haday noqoto wax walba haday noqoto wax walba ay fudud ay qaadan karaan sharaabka waa kuwa hadda ayaga oo birliqaysanaya mid ka mid ah u furmilay ayaa wuxuu isku dayay inuu qaybta receptionka lacagta la baxlay wala bixiyay marka dambe wuxuu qaadanayaa barootiye waa kuwa mid xirmal dhan oo cabitaan oo wato aakhirka si ay u fogaanayaan marka dambe waa kuwa ayagoo supermarketka soo baxaya waayo hadii ay ku raagaan ciidanka ayaa si dhaqso leh ku soo gaaraya waa kuwa ayagoo soo ordiyay hadana oo fiijigan waa kuwa labada nin dhalinyarta ugu dambeysay waa kuwa hadda waa ordiyaan weli waxaan isku dayayaan in ay baawarkooda ku laabtaan ayagoona aan weli lagu soo gaarin dhacdana waxay ku dhacday laba nin yuhuud ah ayagana ay badbaadeen oo wax dhibaato ah iyo wax mataqaanaa dhaawac ma soo gaarin waa kuwa raggii dhibaatada geystana waa ay baxsadeen